saacadii la soo dhaafay maamulka kumeelgaarka SSC Khaatumo ayaa ciidamadii ugu badneed waxa ay geeyeen deegaan ka tirsan gobolka Sool halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka kumeelgaarka SSC Khaatumo. ciidamadan oo hogaaminayo taliyaha guutada afaraad ee Dayax General Mubarak Maxamed Warsame ayaa gaaray difaaca hore ee SSC Khaatumo gaar ahaan aag og waxaana halkaas ku soo dhaweeyay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan maamulka kumeelgaarka SSC Khaatumo. saraakiisha ciidamada gaaray deegaanka og ayaa sheegay in halkaas ay ka sameysteen fariisimo cusub si ay iskaga difaacaan ciidamada Somaliland oo ayagu halkaas ay isku horfadhiyaan. ciidamada ka tirsan maamulka SSC Khaatumo oo wata gaadiid dagaal iyo hubka noocyadiisa kala ayaa lagu talagalay inay xoojiyaan ciidamo kale oo halkaas kaga soo horeeyay maadaama deegaanadaas uu dhowr jeer ka dhacay dagaal isku hor yimaadeen ciidamada SSC Khaatumo iyo kuwa Somaliland. maalmaha soo socda ayaa waxaa sidoo kale la filayaa in aagaasi deegaanka og ee gobolka Sool mar kale ay gaaraan ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa SSC Khaatumo si ay ugu biiraan ciidamada gobolkaasi ka difaacaya Somaliland. xiisadan cusub iminka u dhaxaysa Somaliland iyo SSC Khaatumo ayaa ku soo beegmaysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay dagaal xooggan u dhaxeeya ciidamo ka kala tirsan SSC Khaatumo iyo kuwa maamulka Somaliland ku dhaxmaray deegaanka Shangeed ee gobolka Togdheer. ma jirto wax waan ilaa haatan ay wadaan maamulka Somaliland iyo soo kale SSC Khaatumo oo ku aadan sidii loo qaboojin lahaa xiisadan colaadeed marka la ka soo cusboonaatay deegaanadaasi.